waxaan tacsi u dirayaa ciidankii qaranka booliiska lagu laayay ceel afweyn oo aan la garanay sababta loo laayay kuwa dhinta Allah u naxariisto kuwa dhaawaca Allah inoo caafimaadiyo halkaa ceel afweyn degmada garamayno wax ciidanka lagu laayay wax alliyo wax dhibaato ciidanka ay isku yimaadaan oo lagu laayo oo maanta la qiri kara ma jirto shadoo ilaahay markii hore lagu laayay saraakiishii booliiska ee jeelka aadiyadana wax alli wax loo laayay aan la garanay waxa la yaab leh in cid ama reer uu ciidanka qaranka si dhab yar iska laayo deetana haddii la dulqaato qaranka dulqaato laga baran wadda hala ilaaliyo xagga hala wareego inay noqoto wadda xalaal ah in ciidanka qaranka la laayo maalin walba oo deetana ay noqdaan reeraheena laba jirna ay kala baqdaan oo ninku hadduu qolo yahay aan la taaban karin reerkooda laga baqanayo hadduu qaranka yahay aan lagu soo degdegaayo bilaacil lagu dilaya wax dhici kara maaha haddii laba dowlad xukuumaddu hadduu qaadato dadka hala waaniyo gacan qabo lagu maamulo laakiin dulqaadka iyo duqonnimadu waa walaalo laba kala saari karo waxayna tahay waxaynu gaadhay dulqaadkii inta qaranku dhaafay imika inuu duqonnimadii ku jiro oo maalinba qaranka uu meyd soo waraqsanayo oo ay tahay ninkii waa lagu ooyaa waxayna tahay taasi inay dee soo afjarmayso caqli ka badan la keeno dhibyaraanta ciidamada qaranka loo leenayo annaga xukuumad ahaan iyo madaxweynaha waan ogahay inuu qaranku leeyahay maxaa laga qaadayaa reeraha leenaya ciidanka qaranka waan ogahay su-aasha muddo sugayso waxaynu ka qaadi waxaynaan kula burburin ninka gardarana ku qabanno foormaladeedana waa aad iyo aad wax bahay mana sii socon karto qaran ahaanna akhafu darribi waadadu yidhahda markay shareecadda eegayaan labada dhibaato tayar marka waa in dambiirina la qabtaa yarkii gardarraa dee gacantiina gacan ka weynaa loo geysay ila waa la kari karayaa reerka inuu xalaynaya in caqli saareen dee labadii waa la isu eegaya laakiin caqli baa laga doonayaa dee dadka halkaa degan maalmo qaranka leynaya waana deegaan keliya